daruurtu marxalado kala duwan ayay martaa haddii aad hadda banaanka u baxdid ee aad damacdo cirka inaad fiirisid haddii ay daruur leedahay uusan roob soo dhaweyn daruurtu way caddahay xilliga uu roobku soo dhow yahay daruurtu way madowdahay markuu roobku soo da'ayo biyo ayay isku bedeshaa dhulka ayay ku soo daataa roobku kadibna dhulku waxa uu ku soo saaraa miro sidaas si lamid ah marxaladu ay daruurtu marto ayay bilaadan maraan maanta haddii aad 22 ka yar tahay ama 21 ka yar tahay ama 20 ka yar tahay waxa aad ku jirtaa marxaladii daruurta cadeed markii aad 22 ka weyn tahay noloshu waxa laga yaabaa inay isbedelayso sida aad ratay inaysan noqon waxa laga yaabaa inaad la kulantid carqaladooyin aad u tiro badan ee kaaga imaanaya dhan waxbarasho kaaga imaanaya dhan famil ama kaaga imaanaya dhan xiriir daruurtu markay mudowdahay rajadeedu waxa ay tahay biyo inay isku bedesho adigu haddii aadan rajadaada garanaynin way adkaanaysaa sida aad isku bedeli lahayd waxaan ku xasuusinayaa qofku bilaadanka haddii aysan qalbigiisa iyo maskaxdiisa iyo jirkiisa aysan wada soconin oo aad maskaxdaaduna wax markaas aragtaba ay damcayso qalbigaaguna uu iska aqbalayo wax walba oo soo wajaho jirkaaguna wax walba uu arko uu cunayo oo aad jeclaysanaysid inaad jirkaaga gelisid waxaad noqonaysaa qof asiguba kala socda haddii aad kala socotid waxa imaanaysa inaad la kulmi weysid wadada saxda ahayd ee noloshaada u baahneed haddaba maanta waxaan ku xasuusinayaa haddii aad ka yar tahay 20 oo aad waxbarasho ku jirtid boqolkiiba 95 ha ku degdegin inaad xiriir samaysid waxa aad ku degdegtaa sida aad naftaada u kaafi lahayd waxa aad ku degdegtaa sida aad naftaada u fahmi lahayd waayo qofku xilligaasi waxa uu u baahan yahay iyo waxa uu damacsan yahay ma garanayo haddii uusan qofku garanaynin haddii uu qof kale noloshiisa ku soo biiro way adkaanaysaa in uu asiga isbarto haddii aad xiriir ku jirtid ku dhihi maayo xiriirka jooji laakiin waxa aad ku dadaashaa inaad ka fikirtid waxa jirkaagu u baahan yahay waxa maskaxdaada u baahan tahay iyo waxa qalbigaagu u baahan yahay ka fikiradaasi waxa ku sahlanaanaysa in carqaladaha kugu taagan maanta ay ka kala yaraadaan daruurtu haddaysan biyo isku bedesheen roob ma soo da'een adiguna xilliga daruurta ay madowdahay haddii ay jawiga ka qaldan yahay maanta oo da'da aan sheega aad ku jirtid waa xilliga aad biyaha isku bedeli lahayd oo aad dhulka ka soo saari lahayd mirahaasina ay ahaan lahaayeen kuwa adiga ku anfacaya xaalad walba aad maanta ku jirtid waxa aad xasuusataa in marxaladda adagaad maanta ku jirtid ay tahay xilligii aad isbedeli lahayd aad isku bedeli lahayd biyana markaa noqotid waxa soo saaraysa wixii naftaada ay u baahneed nooc waxay doonto ha noqoto waxa laga yaabaa maanta inaad meesha aad joogtid eed sanaysid oo aad dhahaysid haddii aad meel kale joogi lahayd noloshaadu way isbedeli lahayd waxaan ku xasuusinayaa qofku haddii uusan meesha uu joogo waxba ku qabsan karin meel kale hadduu tago waxba kuma qabsan karo haddii aad maanta wadankii joogtid ama dibadaha aad joogtid qofka maanta dibadaha joogo waxa laga yaabaa boqolkiiba 95 inuu ku haminayo inuu leeyahay haddii aad wadankii joogi lahayd wax badan baad qabsan lahayd maanta qofkii wadankii joogana waxa laga yaabaa inuu ku fikirayo haddii aad dibadaha joogi lahayd ama wadanka meel ka baxsan joogi lahayd wax badan baa qabsan lahayd wax qabsashadu kuma xirno meesha aad joogtid ee wixii ay ku xiran tahay naftaada sida aad u hormarisid sida aad maskaxdaada iyo jirkaaga iyo qalbigaaga isku waafajisid haddii intaasi israacaan oo aad u heshid wadada saxda ah meel walba aad dunida ka joogtid ama qurbaha ha noqoto ama wadankii ha noqoto ama meel wadanka ka duwan oo wadamada dariska ay tahay waxaad noqonaysaa qof wax qabsada haddii aad ka fikiraysid sida aad adigu isku bedeli lahayd sida aad maskaxdaada iyo qalbigaaga iyo jirkaagaba isku waafaji lahayd laakiin haddaad ka fikireen waxa aad cunaysid haddaad ka fikireen sida aad u fikiraysid haddaad ka fikireen waxa qalbigaagu u baahan yahay waxaad noqonaysaa habba qofku waxa uu arkaba inuu niyad geliyo haddii aad maanta cunno aan nafaqo ahayn ama cunno aan nadiif ahayn aad iska cuntid jirkaagu sida aad ratay weligiis ma noqonayo haddii qalbigaaga qof walba maanta siinaysid qofkaasina uu u qalmin in qalbiga la geliyo qalbigaaga sida uu rabay ama sidii loo baahnaa in loo daweeyo uma daweysmayo maskaxdaadu haddii ay iska aqbalayso qof walba ee aragto qaabku u labisanayo qaabku u soconayo qaabku noloshiisa u maareynayo haddii aad la barbar dhigaysid weligaa waxay ahaanaysaa mid maskaxdaada taagan aqbal sida aad tahay aqbal meesha aad joogtid aqbal sida aad u fikiraysid haddii sida aad u fikiraysid ay si qaldan tahay bedel qofku waxa bedela waa bee'ada haddii bee'a xun tahay dadka aad la nooshahay
adiguna waa la xumaanaysaa laakiin haddii aad adigu beecada sida u nool yihiin aad intuu fiirsatid aad aragtid inay qaldan yihiin saaxiibka hadduu intuu galab walbo soo bix intuu ku yiraahdo isbartiinka ku kaxaynaya 3 saacadood halkaas aad ku soo luminaysaan ama 2 saacadood ama saaxiibka hadduu intuu ku kaxeeyo maqaayad ku geynaya shaha inta ku cabjid iska fadhiisanaysid ama waqtigaaga aad ku luminaysid meel aanan muhiim u ahayn weliga waxa ahaanaysa qof qaflad ku jira qof indhaha aan u kala qaadneen qofku waqtigiisa hadduu u xisaabsaneen waxaad ku noolaanaysaa shalay waxaadna ku murugoynaysaa waqtiyadii ku soo dhaafay waxaana ahaanaysaa qof aanan naftiisa fahmaynin waqtiga yariiska ah haysatid dib kuugu soo laabamayo inta aad isbarbar dhigi lahayd qof kale noloshiisa marka hore adigu qofkee tahay dheh marka aad adigu is ogaatid waxa ku sahlanaanaysa in noloshu markaas ay ku bilaabato noloshaana aad bay u yar tahay ma garanaysid xilliga naftaana ay ka bixayso inta yar ee aad nooshahay ha ku noolaanin inaad naftaada qof kale la barbardhigtid ee ku noolow waxa qalbigaaga uu raba inaad aqbashid haddii aad maanta liidatid oo aad ka liidatid dhan waxbarasho ku dadaal sida aad waxbarasho u bilaabi lahayd haddii aad maanta liidatid oo aad ka liidatid dhan xiriir ku bilow xiriir wanaagsan sida aad u heli lahayd waayo xiriirka wanaagsan kama imaado qofka aad markaasi la nooshahay ee wuxuu ku yimaadaa shakhsiyadaada sida aad qofka ula dhaqmaysid haddii aad wanaajinayso qofka uusan ku wanaagsaneyn markaasi go'aanku waa ku cad yahay haddii aadan maanta haysanin qofku garab istaaga noloshaani dad baa keli nool dad baa keli taajir noqda dad baa keli wax qabsada noloshaani marka aad dhalanaysay qofna kulama dhalan qof walbaba sibu wax u dareemaa qofka kuugu dhawaa mataankaaga haddii aad mataan leedahay inkastoo dhif uu yahay boqolkiiba qof hal qof laga helaya ama aanba laga helininbo haddii mataankaagu isku dareen ma tihidiin haddii aad maanta dab gacantaada saartid asigu ma dareemayo marka noloshu haddii aad is leedahay waxa ku ciilaya waa waqtiga kuma ciilaya adiga sida iska dhigtid baa ku ciilaysa waxa aad maanta qabanaysid biri waa ku anfacaya haddii aad maanta is leedahay jim haddii uu magaaladeeda lahaa waa iscaatay lahaa waxaan ku xasuusinayaa jim kaliya la iskuma caateeyo ee waxa la isku caateeyaa boqolkiiba 95 waxa ay tahay cunada aad cunaysid inaad ka fikirtid inta ay la eg tahay iyo waxa ay tahay waxa laga yaabaa mar walba inaad maqashid isbeddelkaasi muhiimadiisu ma aha in dadka kale ee u muuqato waa in waxa aad ku qanacsan tahay aad ogaataa waxa ku farxad gelinaya waxa markaas aad is leedahay alleelehe farxad baa ka helaysaa inay ku qoran yihiin ama aad og tahay waa in aad riyo leedahay waxa laga yaabaa qof walba naga mid ah inuu riyo ku haminayo riyadaasi muhiim ma aha inay adiga ku hirgasho laakiin waxa muhiim ah inaad wadadeeda qaadid wadadeeda inta aad haysidne waxaad la kulmaysaa waxyaabo badan oo ka duwan riyadaadii oo adigu ku farxad gelinaya muhiimadda riyada loo leeyahay waxa ay tahay inaad adigu inta aad riyadaada u sii socotid aad la kulantid nolol kala duwan aad la kulantid waxyaabo kala duwan oo ka qarsoona laakiin riyadaada lahayn lama kulmaysid waxyaabahaasi aad wadada kala kulmaysid muhiimadda lagu leeyahay riyo qofku leeyahay maaha in riyadiisi uu gaaro ee waxa ay tahay maanta uu riyada sameysanayo ilaa maalinta uu isleeyahay riyadaada waa gaaraysa inta u dhaxaysa waxa aad la kulantid meel walba aad dunida ka joogtid ama meel walba aad iga daawanaysid waxaan idin rajaynayaa caafimaad waa saaxiibka Shaahid Biisani videogan aad ka heshay asxaabtaada waa la wadaagi kartaa